بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم dhamaan arday Soomaaliyeed ku soo dhawaada kaalin waxbarashada ee preparation insha Allah haduu Allah awood leeyahay kan maanta waxaan soo gudbi doonaa maadada technology of fasalka 8 imtixaankii ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada ama gobolka Banaadir agaasin gobolka Banaadir uu qaaday 2021 sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay insha Allah ardayda dhamaan waxa muhiim ah marka hore in imtixaanka shuruuciisa iska fiirsid magacaaga oo afran inaad qortid roll numberkaaga dugsiga ee xarunta inaad qortid sidoo kale tilmaamaha lagu siinaayana inaad akhrisid qaybta koowaad waa goobageli jawaabta saxda ah su'aasha koowaad waxa waaye hawl kasta oo la qabanayo waxa ay u baahan tahay arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah tamar ay u baahan tahay ama awood su'aasha labaad ka soo saar mid kamid ah magacyada lidka fayraska waxyaabaha soo socda arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah faasta su'aasha saddexaad astaamaha lagu yaqaan marka uu virus computerka galo waxa kamid ah arday jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha afaraad astaamaha lagu yaqaano marka computerka viruska galo xarafka ta oo ah xawaarihiisa soo yaraado su'aasha afaraad qoraxdu waxa laga dhaliyaa danab ama koronto iyadoo la adeegsanayo qalabka arday waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah solar si aad farta ugu dhigto mid qaro ah ama bold ama xogaa waaweyn dooro qoraalka aad rabtid kadibna guji amarka ay ku taal kooxda font amarkaas aad gujinaysaa arday waxay noqonaysaa jawaabta xarafka ba oo ah xarafka ja oo ah ba taabanay macna jawaabta waxa ku jirta xarafka ja b daas taabanay b ama bold taabanay arday b dana waa kaasa intee ka muuqata b daas taabanay macna b da taabatid fartaada waxay noqonaysaa marka dowlad kadib b da taabatid bold ay noqonaysaa su'aasha xigta oo la ahlaad mastaradu waxa ay dokumentiga kaga taal arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah kor dhinaca bidix su'aasha toddobaad siyaabaha uu fayraska u gudbi karo computerka waxa kamid ah arday waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah gelinta file flash virus wata su'aasha sideedaad muuqaalka backstage waxaad ka heli kartaa arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka xa oo ah kaydinta ama save gareynta iyo daabacidda ama print si aad u abuurto document cusub guji file kadibna dooro arday waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah blank document aad dooranaysaa su'aasha 10aad waxa haboon in aadan afgarasho ama password ka sameyn ama ka unkun arday waxay noqonaysaa jawaabta xarafka ba oo ah magacaaga tamarta gurta waxa ka mid noqon kara arday waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah nuclear-ka ka mid ah arday su'aasha 12aad soo gaarnay tamarta dabaysha waxa ay ka mid tahay tamarta arday jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha 12aad dabaysha waxay ka mid tahay xarafka xa waaye oo ah tamarta maaxada su'aasha 13aad arday waxa waaye adigoo kaashanayo sawirka sidee copy loo sameeyaa sawirka meesha kugu qoran adoo sameeyo oo kaashanayo sidee copy loo sameeyaa arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah home kadibna copy xarafka ja oo ah home kadibna copy aad dooranaysaa ardayda u jeedaan adda carabka ama taabiska noo furan waa home copy na waxay kamid tahay carabkaas ay kamid tahay waa kaas copy calaamadaas waa laba sacan iskor saaran ayaa copy ah ina fahanteen rajina arday su'aasha 14aad waaye laakiin 15 qoran su'aasha 14aad jawaabta la geli su'aasha 15aad shirkadaha jaamacadda ee wixii lamid ah waxa ay hayaan xog muhiim ah hadii mas'uul lagaaga dhigo maxaa sameyn lahayd arday waxay noqonaysaa jawaabta xarafka xa oo ah afgarasho oo sameyn lahayd basweer adiga oo kaashanayo sawirka bedel xajmiga fartaada xajmigeeda bedel font size arday jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha 16aad
xarafka ba oo ah font size kadibna dooro tirada kadibna enter dheh saas oo macnaha sida sawirka kaaga muuqata ba font size arday qaybtaan lahaa ee 14 ku qoran tahay ujeedina maleyna buttonka sera furaysa waxaa doorane tirada airta doorane kadibna enter dhehaysa waxayna ka mid tahay arabka homka ka mid tahay iyadana arday su'aasha 17aad samaynta tixana dhibca leh dooro qoraalka kadibna guji falaarta bulletis ee ku taal falaarta bulletis ee ku taal falaarta bulletis ee ku taal carabka arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah home arday su'aasha 18aad tamarta qoraxda tamarta qoraxda tamarta qoraxda waa la kaydiyaa si loo adeegsado marka ay arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah korontada tagto su'aasha 19aad si aad u kaydiso dokumentigaaga guji arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah file kadibna save dooro su'aasha 20aad si aad u daabacatid dokumentigaaga guji arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah file kadibna dooro print dooro arday qaybta labaad soo gaarnay qaybta labaad ku buux meelaha banaan ereyga ku haboon ee ku jira sanduuqa waxaa noogu jirto erayo ay ka mid yihiin recent documents ereyga koowaad waaye ereyga labaad qoraxda ereyga saddexaad virus ereyga afraad lidka viruska ereyga shanaad afgarasho ereyga lixaad ilays ereyga toddobaad documentiga ereyga sideedaad ribbonka ereyga sagaalaad tamarta dabaysha ereyga 10aad guji falaarta dhinaca sare midigta iyo mar labaad ku celinta falaarta ereyga 11aad ku jiro oo ah qolob arday su'aasha midda ugu horeysa oo kale 21 waxaa ka maqan ribbon ka maqan macnaha ribbonku waa meesha laga helo dhammaan amarada muhiimka ah ee loo baahan yahay 22 arday fogaanta u dhaxaysa sadarada waxa ay fududeysaa akhrinta meesha waxaa ka maqan arday dokumentiga ka maqan macnaha arday 23 waxaa ka maqan meesha lidka viruska waa barnaamijka difaaca kombiyuutarka fayrasyada arday su'aasha 25aad waxaa ka maqan meesha tamarta dabaysha waa nooc ka mid ah noocyada tamarta maaxada su'aasha 25aad siyaabaha ay ku soo baxdo tamarta qoraxdu waxaa ka mid ah habka laba hab ay ku soo baxdaa ilays iyo dabayl labadaas bay ku soo baxdaa ama sidoo kale kulul iyo waxaa la dhihi karaa iyo dabaysha waa la dhihi karaa iyadana arday su'aasha 28aad feelashii aad mar dhow furtay waxaad ka heli kartaa liiska recent document meesha ka heli kartaa recent document ka heli kartaa arday su'aalaha ka booday waxaa ka booday su'aasha 27aad isha ugu weyn ee bani aadamku iyo xayawaanku iyo dhirta ay ka helaan tamarta arday jawaabteeda waxaa ka maqan meesha waa qoraxda meesha ugu weyn ee bani aadamka xayawaanada ay wax ka helaan waa qoraxda 29 soo boodna maadaama 28 soo sheegay adiga oo xogta ilaalinayo maxaad sameyn lahayd arday waxay noqonaysaa afgarasho ay noqonaysaa adiga oo fiirinayo sawirka dhinaca ururi kadibna balaari ribbonka sawirkan oo meesha kugu muuqda adigoo fiirinayo waxaa laga rabaa ribbonka inaad ururisid kadibna aad balaarisid meesha waxaa ka maqan arday
waxaa ka maqan guji falaarta dhinaca sare ee midigta meesha qorantaa halkaas ku qoree b meesha qorantaa waxa ku qoree mar labaad ku celin falaarta marka falaartana waa tan ardayay falaarta waa tan midaan inta ka muuqato waaye tanaa gujinaysa ribbonka wuu urursama mar labaadaa gujine ribbonka wuxuu noqonaa buu soo baxaa micnaha marka koowaad marka taabatid taabiska ama carabiyada home iyo waxaas bisa arkay inta kale ka aqrisamayaan mar labaadaa taamane way kusoo wada baxayaan arday insha Allah meesha kusoo gabagabeynaa qaybta saddexaad muuqaalka la soo dhigeynaa insha Allah kana asxaabtada la wadaag waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen بإذن الله المولى امتحان كان إلى هذا الفضل إن شاء الله.